الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan soo bilownay kabaa'irta oon mawduucii hore kusoo qaatay wax badan aan macnaha soo koobay waxyaabaha kabaa'irta noqon kara ee waaweyn runtii oon soo sheegay in maxay ahaato ay kabaa'ir tahay oon la dhihi karin kabaa'ir maahan wax walba oo ciqaab ka ratimayo qur-aanka ku sugan kabaa'irta marka walaalayaal waxa ugu horeeya shirkiga ugu horeeya walciyaadu billaah ilaahay naga badbaadiyo shirkiga qofkii ka badbaada walaalayaal waxa weeye jaanis weyn ayuu haystaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yiri laba aayadood oo ku jirta suuratu nisaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad dalla dalaalan baciidan waman yushrik billahi faqad iftara ithman cadiiman labadaas aayadood sidaas weeye ilaahay ma dhaafo marnaba in shirki loo sameeyo qofka shirki sameeyana wuxuu la yimid dembi weyn ayuu la yimid ama wuuba lumay oo lumid aan soo laabasho lahayn uu lumay suuratu lmaa-ida aayadda 72 allah wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ciise markii uu isagoo ka sheekaynaya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu wa qaala almasiixu ya bani israa'iil icbudullaha rabbii wa rabbukum إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار في رايدان لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار dad badan oo u maleeya nabiyullaahi ciise inuu ilaahay yahay arrintaas ayaa hortaalla waxay ku jawaabi lahaayeen ayaga laga sugayaa markay ilaahay hortagaan subxaanahu wa tacaala sidaas kelimada xaqa ee nabiyullaahi ciise uu sheegay oo dadka uu sheegay sidaas ay ahayd aayado kaloo fara badan ayaa jira oo qur-aanka ku jira suuratu zumar ayaan tegaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maxaa shirki muxuu yahay macnaha ilaahay wuu sheegay inuusan dhaafin shirki wixii shirki kasoo harana ciduu doono uu dhaafayo marka aniga aqoontayda ilaah baa og xaqiiqada qofna ma dhihi karo anaa og 100% laakiin anigu waxaan daraasad dheer ayaan qur-aanka ku sameeyey walaalayaal waxaanan isleeyahay anigu wax walba oo qur-aanka lagu sheegay in cadaab ka ratib mayo khatar waay walaalayaal garantii ma jirto ma dhihi kartid liman yashaa isku halayn noocaasu ma jirto walaalayaal mar haddii lagu sheegay waxaan cadaab baa ka ratib mayo laakiin wax badan oon cadaab ka ratibmayn oo qur-aanku uusan sheegin in cadaab uu ka dhalanayo haddii aad samayso laga yaabo in lagu amray inaad samayso ayaa waxaa laga yaabaa inay mashiicada ilaahay hoos galaan subxaanahu wa tacaala bifadli illah marka walaalayaal wax walba oo nahyiho qur-aanka ku jira oo ciqaab uu ka ratibmayo waxaad u fahantaan inay tahay arrin khatar ah lana rabo in laga istaago oo hadhow qiilma helaysid oo waxaa ku hortaala allah subxaanahu wa tacaala qof kastaba u tagaa allah subxaanahu wa tacaala by individual walaqad ji'tumuna furaada kama khalaqnaakum awala maratin ilahay ayad qur-aanka ku yiri xabad xabad ayaad noogu imaanaysaan sida aan idin abuurnay oo kaleeto markaad ilahay u tagto ilahay wuu ku weydiinayaa maxaa kugu dhacay uu ku leeyahay waxaan aan kaa reebay maxaad u samaysay weliba kugu sheegay in ciqaabkii ka ratibmayo maxaad odhanaysaa dee waxaad sheegtay mataqaanid ilaa wixii waad samaysay mogtahay marka kaba digtoonow marka hore qof ilaahay doortay ayaan baan iska ka dhowrsan karaa runtii marka allah wuxuu noo sheegayaa waxyaabo tusaalooyin fara badana oo shirkiga maxaa noqon kara ah arrinta isweydiinta weyn mudano taas weeye shirkigu inuu khatar yahay layskuma haysto dooduna kama taagnaa kartaba sideedaba marka maxaa shirkiya waxaan ka baaraynaa qur-aanka ayaan ka baaraynaa suuratu zumar ayaan tegaynaa waidaa dukira allah aayadda 45 suuradda 39 aayadda 45 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أي الله يلكن كلية حدي لو لا يراهدو إله هو كليديس كو أنا مالنت قيام الرميسنين نية لما كحمانيسا وحي إلهي كسوكي هدي الله حصول لو درنا ويبفرح أيان وسيحون أيو كلابد بدن أيان بل فيرش آيات داس aayadda kale oo suuratul ghaafir ku jirta aayadda 12 suuratu ghaafir suuradda 4tanaad
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أي الله إليه صابتم حيتها قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل مركي يراهدان وأيضا كهر رئيس إلهي سداس كشاقي إله هو ندي شيء لما تشير معناها قفكم مركو سيحدنا ودنتا مركي جيرد سحدا وتمادنا ودنتا وأحييتنا ثنتين مركو صوت وصر وصوت وصر هرديك سوكعه هو نول مرك قيامها لقى صوب حنا وحين نقنيسا نول كلتين نقنيسا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل دنبي قلنا قوان قرنا إله ربي وضم فرنتاي وضم نو فرنتاي مركز إلهي وحكو أورانيا وإذا دعي الله وحده كفرتم به خدي إلهي كليدي لبريو ماشان بريو واي في شوريا أما يريد الله كليس لبريو كفرتم به واتكو كفر نيسين وديديسين وإن يشرك به تؤمنوا خدي وحلالو ذاجي وحلو الضرو أو حلو كبنا واترمينيسين فالحكم لله العلي الكبير أرن أو إذل حكم أو إذل الله آية أسكال سبحانه وتعالى آيات كلا كجرت الصورة اللي هذا صورة يوسف آيات بقول يلح إلهي وحو أرنيا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بني آدم كتير وبضانو مر ما ينيان إله كليديس إلا وحبي لو ذا جنيان وحبي لو ذا جنيان مويان سورة محمد إلهي وحو هل كان أمر يا سبحانه وتعالى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أيا لي أجوبة لرسولك إلهي أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أجوبة لرسول الله محمد إلهي مويان إله كلمة جلو ذنب دافنا إله ويديسو مؤمنين تا ويدي أما هو ويديستين مؤمنين تو مؤمنات كنا سيدو كليتو والله يعلم متقلبكم ومثواكم إلهي ويوجه ماشد جوكتان يا ماشد كل ما نيسان انت بقى مل الله ماشد إذن ضمبينيسا ماشد أجوكتان بوجه الله سبحانه وتعالى توحيدك ولا ليا لبا آيادات أي قرآن كدحديسا كجرا آيادان سورة 14 iyo suuratu saafaat aayadda maxay hato ان 35 sidaas oo kale waa iyadana ان marka sidaas loola socdo horta tawxiidku sidaas uu macnaha u culus yahay oo shirkiga macnaha in laga fogaado sidaas way quraanku marka waxa la isweydiin karaa shirki maxaa noqonaya shirki walaalayaal waxaad noqonaysaa sidaan aad fahmaysaa waxa shirki noqon kara wax ka maqan adiga oo dul jeedin inaad maxay hato aad adigu caabudo oo aad u malayso inay wax ka dhibi karaan ama wax ku tari karaan haddii aad u malayso wax ka maqan oo aad su'aal weydii karin oo goor joogin inay waxna ku tari karaan waxna ka dhimi karaan khatarad ku jirta ka fogow waxaad ka fogaataa rag iyo rabbi u baahan tahay ilaahay wuxuu qabto ogow waxbaad ku dartay allah subhanahu wa ta'ala allahna wuu ka deeqtoon yahay in wax lagu daro uma baahna mana jecla wuuna naga reebay wa in yushrak bihi tu'minu ayaa soo hoosgelisa meeshaas haddii ilaahay wax lagu kabo waad rumaynaysaan allah rasuushiisa allah awliyadiisa waxyaabaha noocaas oo kale taa waxa weey baadil way walaalayaal laga fogaado wax ku tari kara ilaahay un baa ka jira kalidii way kali ilaah kali way uma baahna ilaahay wax tari kara subhanahu wa ta'ala waxna ay dhibi kara cid kale wax kuma dhibi karto wallaah dhamma adduunyada waxa ku nool hadii isu yimaadaan inay ku wax yeelayaan oo dhibaato ku geystaan wax aan ilaahay qadarin kuwa dhici maayaan absolutely ka baqintaas lamana rabo in niyada soo gasho shakigaas oo niyada soo galo nabi ilaahi maxamed meel fara badan ay ilaahay quraanka ugu sheegay oo wuxuu ku yiri la in ashrakta la yahbadanna amaluka hadii aad shirki samayso waa buriya amalkaadi macnaha waxaad soo samayso wax faa'iido ma yeelanayaan ayad kale suuratul isra ku jira ilaahay wuxuu ku yiri walawla an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalilan idan la adaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat waxaad ku dhawaatay inaad wax yar ka bayrto xaqa wax yar oo u leexato dadkii maxay ku cadaadinayay dhibaatadii kugu sameeyay markaasna waxaan ku dhidhinsiilahay nolosha xumaatadeeda iyo maxay ahayd geerida xumaatadeeda wal ciyaad billah walaal marka khatar waa arrin culus way runtii in ilaahay kalidiis la tala saarto way rusushiya asaas ilaahay u hadlaya rasuulullaahi maxamed ayaa ilaahay asaas u hadlaya annagu xagin joognaa marka walaalayaal marka qiil ma jiro la sheega karo oo la dhihi karo maxay ahayd ilaahay saanay ilaah kaligiis waaye kaligiis inaan tala saarano waaye kaligiis inaan ka baqno waaye kaligiis inaan rumayno waaye
waxaan helaynaa markaas mashiicada ilaahay ayaan helaynaa markaas haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay wuu nu dembi dhaafaa insha allah la soco casharada dambe haddii ilaahay yidhahdo. Assalaamu calaykum.